xaaladdu markay ugu sugnayd waxa weeyaan kharash badan adoo haysta un baad shaqayn karaysaa waa intaasoo shidaal amba shidaalkii toddobaadlaha intaa haysta amba kii billaha intaa haysta amba kii maallaha intaa haysta hadday beertiba kaa uma koo matalan 5 litir aad soo qaadatay amba 10 litir soo qaadatay waa intii beerneed baad wax kale ma awoodi kartid oo sii fiirkisid kadib markaa waxaa dhacday inta bishii aan ku cabo shidaal iyo intaan ma garanaysaa haddii aan xitaa hafta soo qaadatay intaan bixin lahaa markaa shirkaddan baan markaa Khaalid ugu horbartay markaa ka yimid sidii baan ugu tagnay sidii baan xafiiska iyo shirkadda heshiis kula galay kadib markaa eega beertii wax la sii durkiye mooyaan ka warwarid ma leh haddii berri 10 saaqadood la sameeyo maxaad ku waraabinaysaa kama warwaray eega halkaasoo kale aan ku joogaynay eega halkan intan oo kale waa lagu biiriyey halkaa dushoo kale waa lagu biiriyey halkan sii socoto waa lagu biiriyey beerta dushaas sii socota xaggaa jira halkaa ka socda tan godkana waan ku soconnaa marka waxa boqolkiiba boqol bay eega ma garanaysaa ayaa ninaan wax baasha haysan waxba kama cuni karayaba soo larta niman haysan wax alla wuxuu ka cuni karayaaba ma jirto eega wax sal isku mooliyo kii aan hayna eega u hiigsanay kii dee aan heli karayn oo deesna calaacal la joogo mooyaan wixii dooxa laga nool yahay ceelashayada dhaadheer waa soo lartaa ni soo lartaa dhigto marka qof kastaaba uu ka dharagsan yahay inuu markuu soo leero nasanayo speeda ayaan idhaahdaa iyadoo ma garanaysaa dad intaas ka baranayna dad wanaagsan yahay shirkadda aan ku soo diirno ciddii xadhow qof eegaya beertayna ugu xigtoo kale doonaysa inay ma garanaysaa aan kaxeeyo sidoo kale aan soo sameeyo kolkaa marka horeba aanu saa u xidhiyaa dadkoo dee sidii yacnii anu waxaan kaga nastay iyagana aanu sheega moogtahay shirkadda wanaaggan kala kulannay iyo sidaan kala kulannay injineereega waxaad arkaysaa nin baal iska soo iibsanayo oo shirkadda intuu lacag bixiis ka soo iibsaday oo anba ka xumaanayso qof soo kaxaysan iyo kolba qof doonayo kolba qofka doonayo eegan shirkaddan waxaan ku sii jeclaaday injineer waxa la yidhi sanadkii wixii ka xumaada hadday wax ka xumaadaan cid farsamada shirkaddaad u sheegaysa waa wax aad ugu sii galay oo lilbiga injineerka Khaalid baa u qaybsan baa iyo liigu marka waxa weeyaan $2,000 baan sii dhigay bishii intii dambe waxa lagu qoray $80 aan bixiyay 24 bilood baa baan maleynay $80 baan bixiyay $80 iyo shidaalka iga bixi jiray markaan isku eegnay eegaynta shidaal ku bixi karta intaan aan beerna firkinay iskuma dhawo bishii $150 ay taybaan maleynaya way ka badanaysaa $200 ee beertada inta beerna shidaal ku baxaysa $80 waan bixinay haddii inta lagaan ku sii beerna waa $80 waxaan bixinay eeg waa faa'iido garanaysaa aad iyo aad ugu wanaagsan marka waxaan kula talin lahaa beeraleyda horan ugu la taliyay iyagoo ma garanaysaa aanan fiiro laga toogin inay ma garanaysaa jisamka raacaan way soo hiigsanayaan inta dambe way soo hiigsanaysaa anaguna wallahi aad iyo aad baan shirkadda ugu mahadnaqaynaa yacni xumaashaheeda ay tahay ma garanaysaa haddii wax kaa xumaadaan sidii kuula joogto haddii ma garanaysaa wax kale aad uga sii baahato sidii kuugu dabacsan tahay haddii waxan shil kale kaa gala sida yacni haddana aad loogu ma garanaysaa dhexdhexaad looga noqonayo ciid waxba ku geysan yacni xeerarkayga markiina loo akhriyay boqolkiiba boqol iyadu aad baan mahadsan shirkaddan aad baan ugu mahadcelinayaa aad baan ugu mahadcelinayaa anigu halkaa dee anoo lacag haysan oo kala bara tan la galay weeye ma garanaysaa kor ii soo qaaday weeye noloshayda maanta bar ka dhigtay ciyaalkayga waxbarashadeedii kaabihayga halkan shidaalka kaga fikri lahaa iminka waxa kale waa waxaan intaa yar shidaal iska bixiyo iyo waxaan reerkayga ku fangareeyay beerta